barnaamijkii lagu daahfurayay ee guddigan heerka qaranna lagu magacaabay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka hadlayay idinkuna su'aalaad badan baa ayaa wax weydiiseen waxaynu u baahannahay maxaynu maanta ka hadlaynaa xaqiiqada in hor taalaana maxay tahay xaqiiqada in hor taala waxa weeye waa masiibo adduunyadu siday u dhantahayba maanta taabatay waxaynu doonaynaa markaa haddaynu reer Soomaaliland nahay sidee baynu uga hortagaynaa ama sidee baynu ula macaamilaynaa arrinka masiibada sida hadda wasiirka warfaafinta uu sheegay saxaafadda qaranka marka arrintan laga hadlayo siyaasad laga hadli maayo xisbiga laga hadli maayo qof kasta oo bini'aadmiya oo Soomaaliland ka mid ah laga soo bilaabo madaxweyne ama laga soo bilaabo saxaafad ama ganacsade ama faqiir ama taajir waa masiibayna wada hortaala waynu ognahay arrintani baanig fara badan bay adduunyada gelisay dalalkii waaweynaa ee dhaqaalaha lahaa ee cilmiga faraha badan la lahaa ayay guddigood maxaan ku dhahdayay iminka saxaafadda markaynu aragna baanig ku jira waxaynu u baahanay markaa kow inaynu nahay nation qof qurac ah yaad siyaasiyan taageersan tahay yaad jeceshahay yaad necab tahay waxa soo dhameeya wax macnalo oo ay sameynayaan male waxaynu u baahanay markaa siyaasad iyo behavior isku wada mida inaynu raacno maxaa ugu badan aynu raacinayna yaa ina hogaaminaya iminka waxayna hogaaminaya awaamiirta tilmaamaha talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirteedu ay samaynayso maha qof waliba wuxuu maskaxdiisa ka keenayo waxaynu samaynay iskuuladan in la fasaxo dhulka maxaan ku dhahdaa la isugu imanayo in badiyaaba la joojiyo waa waxa qura ee la soo saaray bulshadii caafimaadka adduunka ee haddii laga soo bilaabo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa WHO iyo dawladihii waaweynaa sababaha ugu badan ee lagu yareeyo xanuunkan waa waxyaalaha isu imaatinka waxayna siinaysaa tilmaantaasaan fulinaynaa meelaha noocyadaas oo kale ah waxa fulinaya ciidamada amniga ee Soomaaliland ciidamadu markaa waxaan faraynaa talaabada ay qaadayaan waxa weeye wax kasta oo ka soo horjeeda arrimaha ka hortagga aynu ugu talagalay inay si toosa talaabo uga qaadaan bulsho meesha la isugu yimi inay ka xidhaan meelaha ganacsiga la isugu imanaya xaddaafka inay ka xidhaan munaasabadaha aynu ugu talagalay inay maxaan ku dhahdayay badbaadada ay tahay inay ka xidhaan wax allaaliya wixii talaabo laga qaadayo inay ka xidhaan xadka waxaan aynu kala macaamiloonaynaa oo aynu ka wada shaqaynaynaa dawladaha aynu jaarka nahay oo ilaa iyo hadda Itoobiya waan kala wada shaqayn wanaagsan baa inooga socota dadweynaha markaa waxaan u sheegaynaa waa laga yaabaa gobol walba dhulkii iska furaa ee waddo walba la mari jiray in wadooyinka badh la xidho oo la isu raro oo meelo qura corridors kaliya in laga baxo xadka laga talaabayo innakiyo maxaan ku dhahdayay Itoobiya oo meel kasta oo la soo marayo aynu ku lahaano dadkii caafimaadka ee dadkan maxaan ku dhahdayay maamulayay dawladaha aynu jaarnahay dadka qaar waa la sheegay intaasoo dal soo maray oo markay dalkii ka degeen lagu ogaaday inay xanuunkii xambaarsan yihiin oo waxaynu u baahannahay inuu qof waliba iska ilaaliyo waxaynu u baahannahay inaynu discipline yeelano hadda iminka ilaa iyo iminka maxaa la hubiyey marka la isbarbar dhigo China iyo maxaan ku dhahdaa Mareykankii China waxa adeegay inay yihiin dad shuuciyadii ku soo dhaqmay discipline leh wax allaale iyo waxa la faro hal mar 1 milyan iyo 300 oo milyan ay mar wada sameynayaan qolihii kale ilaa iyo iminka waxa la leeyahay saxaafadda waa lala socdaaye qolo waliba wax gooniye bay socotaa awaamirtii baa la kala qaadan layahay marka waxaynu u baahannahay xanuunkani waa waxa lagu qiimeeyay inuu yahay masiibo qaran masiibo caalami ah dal walbana masiibo qaran buu ku yahay marka waxaynu u baahannahay inaynu giddigan ka wada shaqeyno saxaafaddu waa kow
ninkay qayral mas'uulnimo ku noqonayso ee qaranka ku dhabar jabinaya isaga iyo qaranka ayay u wada taallaa laakiin waxaynu u baahan nahay waxyaalaha qaarkood waxa la yidhaha moral gut waa in moral jira waxa ummadaada u noqonaya iminka xisbi gaara ku dhici maayo xaafad gaarana ku dhici maayo dawlad gaarana ku dhici maayo waa adduunyadii oo dhan waa la hayaa dawladahan iminka ingiriiskaa lagu hayaa maraykankaa lagu hayaa talyaanigaa lagu hayaa jarmalkaa lagu hayaa faransiiskaa lagu hayaa heer wasiiradii dalka iyo jenaraaladii ugu waaweynaa uu ku dhacay weeye waa masiibo qarqarka u saaran qof kasta oo muwaadin ah marka yaa mas-uuliyadihii saaran yihiin mas-uuliyadihii waxay saaran yihiin inta dee maxaanku idhaahdaye mas-uuliyadda xukuumadeed ee dawladda inta leh baarlamaan leh guurti leh maxkamada leh ciidama leh ilaa iyo madaxweyneya intaa leh yuu kaloo saaran yahay saxaafadda qarankuu saaran yahay markaas haka kolle warar dambena waa loo iman doonaa qoladii maxaanku idhaahdaye ganacsatada ahna iyo maxaanku idhaahdaye dawladda qaybtii kalena way wada shirtay subermarketyadii maraykan iyo kanadiya baa lalaayaho badhnaanaya innakuna waynu ka sii taxadiraynaa ganacsatadeedna inaanu badnaysaniman waa laga yaabaa sidii second world warkii dhacday oo kale in adduunyada isu socodkaba iminka la joogsado xagga hawada wuxuu isu socodka iminka taagan yahay 70-80% meelaha qaarkoodna wuxuu taagan yahay 100% hadal yaryaroon mas-uuliyadi ku jirin laynagama aqbalayo innaku markaa waan haynaa tamarteennaynu ka war haynaa dadkeennaynu ka war haynaa masiibada ayaan joognaa marka waxaynu doonaynaa markaa inaynu qawaaniintan iyo maxaanku dhahday arrimahan aynu ku soconno kolley barnaamijyaal la soo samayn doonaa wasiirka warfaafinta iyo ay sii dayn doonaan guddidan heer qaran oo laga samayn doono saxaafadda hadday jaraa'id tahay iyo hadday website tahay iyo haddii ay TV tahay borogaraan muxadad ah ayay u baahan tahay waxaan kaga baxayaa dhaliilaha la soo helay ilaa iyo iminka caalamka taagan waxaa ka mid ah inaan message isku mida dadka loo gudbinin marka waxaa la rabaa giddigan markaynu isu tagno inaynu message isku mida gudbinno bayskuna waa kaa wasiirku akhriyo messageka la qaadanayo ee bayskiihi waa kaa wasaaradda caafimaadku ay soo samaysay guddida heer qaranna maxaanku dhahdaye ay isla arkeen madaxweyne guddi golo wasiir gobol degmo kaasaynu wada maraynaa aad iyo aad baa mahadsantahay